بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هركن ودعاء بدي برتن يوتيوب كلين هاي دقيقتين شيء ميل قصة عالم كدافيد كشكتان وهذا سلامنا فضلا سبسكرايب كنو صار عدي هرو نورو شكتين والباسطاي دولة إثيوبيا يا شكتين عيد مدد وعيد تطبيدي كدوه دب وجلي كران مجالات مكالة عاصمة قبل كتجري جدا إثيوبيا هدي لو بهذا لما معلومات كدي مركي أي قبضة عيد مدد TPLF تا أما تابا لا فادا أفياكو وهلا دولة Radwan Hussein ayaa sidoo kale sheegay in xabad joojinta ay dawladdu halkaas kaga dhawaaqday isniintii loo sameeyay sababo bini'aadanimo. Haddaba wariyaha VOA-da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa weydiiyay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo falanqeeya arrimaha Geeska Afrika. Maqalle markii hadda galayeen wax dagaal oo ka dhacay ma jirin. Waa un loo baneeyay suntahay. Yaani magaalada wax dagaal ku dagaalameen ciidamada Itoobiya haba yaraatee ma jirin. Markay soo galeen waa looga baxay magaalada. taasna waxa weeyaan dawladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday inay xilliga roobku ay tahay oo la doonayo macnaha yaani in lagu dhawaaqo wax loo yaqaano yaani xabad joojin sida dadka beeraleyda marka beeraha abuurtaan oo macnaha waxa weeyaan yaani macluushan hadda ka socoto gobolka si marka uusan u baahin oo uusan u fidin marka waxa dawladda inay u turtay dadka shacabka ku nool Tigray inay u turtay midda kale waxa weeyaan nimankan waxaada ay doonayaan maadaama ay maqal la soo galeen waxay rabaan dagaalka inay u dhoofiyo wadanka Eritrea taasna waxa weeyaan waa bilowgii dhamaadkoodii weeyaan waa bilowgii dhamaadkoodii haddii marka ay front kala furaan oo Eritrea dagaalka ay geliyaan micnaheedu waxa weeyaan dagaalku uu daba dheeraanaya ciidanka Itoobiya dib ay soo noqon doonaan marka waxay noqon doontaa marka in la isugu tago mar labaad taasoo marka keeni karta haddana in dagaalku sii dheeraado ayagana meesha ay ku baaba'aan awooddaas marka ma leeyihiin TPLF ay weerar ku qaadayaan Eritrea mushkiladda meesha taala waxa weeyaan xilligii ay xukunka ayga hayeen wadamada reer galbeedka waxay ka helaan taageero aan caadi ahayn ay ka heleen waxay samaysteen wax loo yaqaan lobby group iyo dad macnaha yani falanqeeyo oo macnaha wararka falanqeeyo ay sameeyeen oo fara badan network fara badan ay sameeyeen tii marka waxay u isticmaalaan marka inay yani hadda dagaalka aad ugu isticmaaleen marka waxa weeyaan qorshaha marka hore ay wateen waxay ahayd in macnaha yani nin prime minister maqaar saar ay meesha kaystaan si marka Itoobiya macnaha yani ay u soo macnaha Itoobiya macnaha yani loo balaariyo oo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea lagu soo daro qorshahaas uu ahaa marka qorshihii isaga ahaa markii Abiy la magacaabay oo prime minister Abiy loo magacaabay waxay filayeen marka Abiy inuu noqon doono sida Hayle Mariam oo kale inay ku shaqeystaan oo rabistaan ay ku sameeyaan laakiin Abiy wuxuu noqday nin macnaha ka soo horjeestay grand planka ay wateen oo wadan yani wadamada jiraan kale ay soo ay dib u qabto ay macnaha Itoobiya ay soo galiyaan ayagana xukunka macnaha ay ku waaraan macnaha nidaam noocaas ay markuu wateen oo markuu hatta wadamada reer galbeedka ku kaalmeynayeen tiya marka meesha ka baxday marka dagaalkan wuxuu keenay marka ayagu inuu weeqo awoodaan wuxuu keenay marka siyaastaan inuu uu keenay laakiin wali ma aynu dhumin taageeradii ay u hayeen reer galbeedka ma aysan dhumin oo maxamed reer galbeedka waxa mooday rutiin ay aad u taageerayaan hatta yani ilaa hadda waxa weeyaan reer galbeedka aad bay isugu xiran yihiin aqoon-yahanada gobolka sidee ayay u arkaan xaaladahan hadda ku soo kordhay Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray wallahi xaaladan xaalad dheer la weeyaan waxay ka turjumaysaa gobolka inuu gali doono dagaal dheeraaday aad u dheer oo runtii lagu hoobto haddii aan la qabanin oo la xakamaynin nimankan TPLF ta oo ay dabada la galay wadamada reer galbeedka haddaan la xakamaynin oo reer galbeedka aysan baraarugin oo reer galbeedka aqligooda aysan soo celinin oo aqligooda kale aysan ku xirin yani Tigray aysan ku xirin macnaheedu waxa weeyaan waxa gobolka ka dhici doona dagaal aad u dheeraaday maxaa yeelay Tigray hadda intay soo baxdo mar labaad Tigray mar labaad inay Itoobiya dib u xukunto am xarada kama yeelaysa Oromana kama yeelaysa Soomaalina kama yeelaysa yani sidaamana kama yeelaysa cid ka yeelaysa maanta ma jirto marka inay go'aanna waxa waa another process weeyaan inay ay go'aan gobolkooda ay gudub gooyaan waa another process weeyaan marka waxaad moodaa marti gobolka inuu wajahayo dagaal aad u dheer oo lagu hoban doono afhayeen u hadlay dawladda federaalka Ethiopia waxa uu sheegay in ciidamadooda federaalka ay iyagu ka soo saareen gobolka Tigray gaar ahaan magaalada Maqale sababtan waxa uu sheegay in Ethiopia ay baylaha ugu jirto waxa uu ugu yeeray cadow shisheeye marka maxay kula tahay arintaas laba arrimood baa loo macneyn karaa mid ugu horeysa waxa weeyaan Abiy wuxuu dareemay horta magaalada Maqale dagaalka ma dhicin ciidanku way ka baxeen kaliya ayaguna way soo galeen taana waxa keentay xilliga roobka ayaa hadda socdo
dadka Tigray ku nool oo macnaha yani ku nool gobolka Tigray macluul bad fara badan ayaa soo foor saaraysa haddii marka meesha lagu dagaalamo qaxooti badan baa ayaa dhalanaya oo gobolka ku baahaya oo xataa yani internal space dad badan macnaha oo gudaha ku soo qaxaa jira marka waxa dhan buu fiiriyay uu fiiriyo calculations waxa ayuu eegay marka laakiin hadday marka dagaalkii ay dhoofiyeen ayagii oo Eritrea ay front kale Eritrea ay u dhoofiyaan dagaalku wada dheeraanaya marka waxa weeyaan waxa maanta dhimanaya oo macluulaya oo macnaha waxa weeye dagaalka lagu dhex dagaalamayo waa Tigray weeyaan Tigray gudaheeda lagu dhex dagaalami doonaa taana waxay keenaysaa marka inay shicibkooda u turaynin dadkooda aysan u turayn ay keenaysaa midda kale waxa weeyaan oo oran karaya yani waxa weeyaan abi wuxuu eegayaa nimankan macnaha yani TPLF-ta يعني waxa ay sameyn doon waxa laga filin karayo hadda ilaa hadda aan kula hadlayo qof muuqdo oo ay kamid hadda bakala jooga male tagi madaxda kulli ma dibadey ku baqayin ma meelahaas lagu qarin cid garanaysa hadda lama yaqaan marka haday macna yani ay baqala ku ekaadaan oo marka ay wada hadal dowladda la galaan oo marka ay waxa loo arkaa marka niman doonayay inay nabad soo dabaalaan laakiin hadda waxay diideen xabajoojinta way diideen inay xabada joojiyaan way diideen ma dawladda maadaama xabajoojin ku dhawaaqday ayaga way diideen macnaheedu waxa weeye dagaalkan wadina weeyaan haddii marka dagaalka ay wadaan gobolka dhan baa huraya haddana macluushma sii badanaysaa ciidamada Ethiopia marka dib ay ku soo noqonayaan marka goobahay ka baxeen dib ay ku soo noqonayaan marka dagaalkan uu dheeraanaya taana marka waxa ay dan ugu jirto ma kula tahay in Abiy ay ku qasabtay in ciidamada uu ka soo saaro magaalada Maqale iyo gobolka Tigreega culayska uga imaanaya beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka iyo culaysyo kale oo uu ka wajahayo dhinaca dawladaha dariska sida Sudan iyo Egypt walaal ninka Abiy imanka doorasho galay doorashada waxa way runtii gobolkan Tigray kama dhicin marka cadaas fara badan ayay Mareykanka ku keeneen iyo wadamada Yurubka oo doonayeen inay dagaalka Eritrea soo afmeero oo marka uu joojiyo marka Abiy dagaalka markuu bilaabay ilaa maanta pressure-ka uu saarnaa aad iyo aad xoog badan baa saaray wadamada reer galbeedka aad bay xoog u saareen waliba gaar ahaan markii wadanka Mareykanka yani xukuumadda Republicanka meesha ka tageen oo dimuqraadiyiinta ay yimaadeen Abiy xoog badan bay waxay saareen awood badan bay saareen macnaha si dagaalka loo joojin lahaa waxa kale oo dhinac kaga taagan xuduud ku dhaxeeya Sudan iyo wadanka Ethiopia waxa moodaa runtii in had Suudaniintu ay dib u qabsan loo ay sheeganayeen in Ethiopia muddo dheer ka haystay marka colaad fara badan ayaa meesha ka saaray iyo daamkan asna culays badan ku hayo oo yani wadanka masaarida inay doonayaan daamkan macnaha inay Ethiopia ay runtii ay kala hadlaan oo cadaas fara badan macnaha waxa ay ku saareen Abiy naftigiisa